Somaliland laba shay qori iibin jirtay caalamka waxaan ku iibin jiray dimuqraadiyad iyo doorashooyin iyo nabadgelyo labadaba cid ugu meeman hubkana isaga qaato dadka laayay khaatumana ma bilaabin oo dadka ma layn laga soo bilaabo mudaharaadkii gaaladan iyo international community kana waxaan leeyahay hadaa wax qabanaysaan adeer reer ciidankayaga nabadgelyo oogna u geeyay fareefa waligiina qadiyad shacabkiisu leeyahay iyo dadku madaxda u yahay nin u tanaasulay maaha ama siyaasiyiin wax siyaasadda ka dhaxayso haato ama arin cid ay ka balood noqof ay isku qabsadeen waligii muu tanaasulin Muuse wuxuu doonayaa inuu dadkan message aan soconayn iyo garan soconayn u dhiibo aniguna taama hogaamin horta garaadadan la leeyahay dagaal bay hoorinayaan ama dagaal bay ku jiraan dagaal kuma jiraan shacabkoodii oo gadooday oo geeri ku dhacayso oo dhibaato ku dhacayso oo xaqo ku dhimanaya oo xaqan ku dhimanaya aniga iyagu isku dareen baan kana adigu cadawgaagu mid yahay wax way kun laga ma dhigo markaan wax leeyahay reer SSC reer Khatum arrinka Ismaaciil Umar Geelle dib u baadhay turubka ilaa haddana halkan kaasna anigu xaq baan u arkaa kaanu anagu gali doonana xaq baan u arkaa inta ninkii joogo waa fikir Muuse u gaara Muuse fikran Turkiya aaminsaneen buu aaminsanay waxa aaminsanay magaalada inuu aanan la lahayn marka horta anagu garaadada dhul isku ma haynee ninkaan dhulka isku haynee nooba ogolayna deegaanahan iyagu waxay ogol yihiin dhulkan inaan wada leenahay waxay ogol yihiin dadkan khasaarahooda taagan yahay waxay ogol yihiin inay dadka kan labada docod ku dhimanaya mas'uuliyad ka saarata inana kaga dhiman maayo waani ku caruurtiisa hadda waxa la siiyaa diet baa la siiyaa dhaqaatiir qaasa miisaanka ka rida waranaga ilmaayarnahay oo aan odagiisii ahay baan 5 sano dalka uga tagay si aan dhibaato khasaaro u dhicin cid aan ku qancin karo Muusaan maanta erga ka ahay ama salaadiintaas ku qancin karayso ama ra'yigoodu qaadanayaan ma jirto anaguna Muuse ma qaban karo Turkiina ma qaban karo tolka iga sii hooseeyana ma qaban karo waxaan silaayo isagan waqti ka dhamaan baa habar jecel adeer kacdoonkii iyo khaatumana keen saxiix heshiiska dadku is haysta ka tag baan nune uu ka tagi Cabdiraxmaan Tuur tolkii baa soo yeedhay wax liiyadan doorasho dhicin oo beelu ku wareejiyaa jirin xataa lama sugin cid xilka wareejin lahayd guurtida ku wareejiyay guurtida ku wareejiyay waqtigiisu ma dhamaan doorashada sidii lagu qabtay tolkiisa qabtay ninkii tolkiina uu ka adkaaday wixii la wadayn lahayn anaga qaribnay warnimayo ciidamadeena aan meesha kala baxno dhul baahantana waynu wada hadlaynaa saddexda inaan keenay qisada ugu weyn ay ahayd ehelkoodii waxay u sheegeen ciidamadu inay dhinteen oo la dilay dagaal ku dhinteen waxaan u sheegaynaa inaan run ka sheegayn ciidamada ku yiri waa dhinteen oo nool baanu dadkoodii u soo celinay intiina kalena la xijaac naga haysa ee dhimanaysa waxaan leenahay sabab aad halka u joogtaan ma jirto talooyinkayaga qaata arrinkayga qaata taladana aan idinku jiro waxbaan ku leenahay dhul la idinka qaadi maayo waanu ka wada hadlay beelaha garxajis iyo beelaha habar jeclo intii aad meerka meelaha ka buqbuqaya maahe tada waan isla ognahay Soomaad garan waxaad yeelaysaan ciidamadeena iyo inamadeenna meesha aan ka qaadno tolkeena aan nabadgelin inaan isnabadgelin ninka raga ugu dhow cidna caruurtoodii waxa la keenay dhaqaatiir Taiwan hadeerto miisaanka ka dhinta markay socon kari waayeen ladnaantii inamadan dhimanaya hadaad aragto ama meydkooda aragto ama dhaawacooda oo kamarada qabato laftay cadka isku dhigay raganu dabka ku shidayo aanu ka naxay masiibada waxa weeyaan waa laga baaqsan karay waxaanu different ku kala duwanahay annaga wixii xukuumaddu naga disho waxay oran jirtay xukuumadda waas ama mudaharaad lagu dilo wadogtay degmada Ceelaf Weyn iyo Ceerigaabo waxa lagu dilay ilaa iyo dawladdu ku dishay ilaa dad aan 20 ka yareyn qof kasta dishana waxay oran jirtay noolaas haday cadaalad sameynayso waxay ahayd dadkii lagu leeynayay laascaanood ee dhibka iyo kacdoonka keenay haday ka gaabsatay inay keento oo sharciga hor keentay cidii geysatay inay hadaan xukuumadda oo aasadee dadku xun bay weeshan lahayd waayo 30 sanadood ayaa beershaan anigu odayga ka ahay aanu ka soo jeednaa la kala war aan wax wada yeelano war aan wax wada qaybsano dulmiga iyo isla weynidu waxay keenaan khasaare fara badan bay keenaan hudheeladayadu uu qaatay beerahayga uu qaatay dhulkayga uu qaatay wuxuuna aaminsan yahay inaanu nahay dad hadii aan leeyahay soo guurto kooyto timi Hargeysa laakiin garaadadu waxay og yihiin inaanu dhulka wada leenahay Soomaaliya sanaaga iyo tog dheer ba inaanu wada leenahay garaad jaamac garaad cali oo shalay u dambeeyay wuxuu cadeeyay wuxuu warday dad baa nala leh oo iyaga ma kala go'ay karo Hargeysa waan kala go'ay karaa laakiin saddexdan gobol xaafadahayga ba isku jira guriyahayga ba isku jira dhaqan wadaag baan nahay Soomaaliland oo kale waa iska sii xignay laakiin waa naf markay meeshay ka baxdo weyday
duruufta tan iyo kacdoonkani way ka fursan waayeen nin garaadi ma jecla dadkiisu inuu dhinto waliba waxaan kuu sheegayaa inay ka xumaayeen garaadadu dadka xaggaa ku dhimanaya horaan uga hadlay waan sheegay xataa inuu dad layn doono inuu ku socdo dictatornimo iyo xasuuq waraysigii ugu dambeeyay Allah uu naxariistay sayidkii loo jiray laga qaaday waxaan isleeyahay aayad xagga Ilaahay ka soo degtay bay hadda waxa la arkaysay oo kale wariyaashii ugu qaalisanaa beeshan aanu ka soo jeedo bakayle iyo teere iyo lascaanood bay joogeen dadkani dad cuqdad qaba maaha dad isaaq la dagaalamaya maaha dadka deegaanka la dagaalamaya iyagoo dadkoodii ay ogyihiin dad beelahan ka soo jeedeen ay direen bay iyagu u tageen halgankay wax ku leeyihiin way la shaqeynay cadaalad darrada ka gilgisheen waxaan qabaa mas'uuliyaddeeda wixii halka ka xumaaday mar hore horta beel ahaan baan u leenahay beesha dhexe marka la yaado marka xigtana Muuse Biixi baa waxa kan dhacay iyo dilkan iyo khasaarahan intan leeg oo mar walba laga maaraysan jiray مثل بقى وحده في السيرة دروس وعبر في السيرة دروس وعبر تاريخي هو هذه لقى شيء كيو عشرنا ويكوتشران عبر قادشنا ويكوتشرتها بيلها الرجع حساق مركل هذا بيلها وكبير كحبان أنا جوهن وأنا كسوت شبنا وأنا صامر أنا قاعد أركبه على أراسها يعني براد الرحمن أبوها نين حق يقود سبدي أبوها عصر كنين دي قالوا عشي عيار طبيعي عوضها ركبة يسكن صدق سنوات بين الكبري ورسامي قيبس يا وضع هذا اللي ما أنت مر هدي دتكني مركي هرنا الربيتان كودا كوي مادين ما أنت أنا كنت جين مسير كودا يدنوه هذا إني كتشدان يجي يوحي وحلاله موسى شرعية الصومالي لان كم يتلو ما هيستو ووقت يسوق كذا ماضي دت كانوا حسوقينا لبضة دعوت بويه هنا هذا جرادة يبيشن البهانتي إسكاب ديسو دت كيجي وأنتوا هالك كيني وكو حسوقي كل أي الجرجو أنت كيني أنا جاي أمام محكمة عالمية إيميل باللد لدبتك إننا كارينين حسبيادو أنا أمي حدلين سيدان ربيني وحدلا ما أنت رني كي كرارة دي حيرة مقامات قاعدة لهانا ما إندنا نلا تشوقي مايو اللي بنا كنا نلا تشوقي مايو أساسي إنتنا يا أضياء شو ليهين أبتدي أي دجان هدي أي حكم كودو كعنت كبحو garaadadu kuma dhici karaan anaaba kule kuma dhici karaan shacbiga kan iyo dhibaatada ku dhacday inay dushooda wada hadal ku furaan kuma dhici karaan waxna loo ku badinayaa waxa weeye deewaanu iska xignayo inaanu damqanay ahayd ismadayada hadda halka joogay ee ragga hogaaminaya waa ragga xididka la ahaa ee gabdhaha ka qabay hadii aan la bilay xididka wanaagsan lahaa tijaartii baa u dambayso shalay buu u yeedhayo dhaqaalo ku codsa weydiidan waxa anagu dad ehelkiya macadow baa ku haya dad ehelkiya dhaqaalo ku bixin mayno